Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Madoobe Nuunow oo maanta daahfuray mashruuc cusub oo hay'adda TIS Plus ay ka fulin doonto degmada Dinsoor, iyadoo horey hay'addu u fulisay mashaariic lagu dhisayo garoonnada kubadda cagta iyo garoonka diyaaradaha ee degmada Dinsoor. Sidoo kale, wasiirka ayaa waxa uu furay tababar socon doona muddo 3 cisho ah, waxaana soo qaban qaabisay hay'adda TIS Plus oo mashaariicdan fulin doonta. Haddaba, furitaanka tababarka ayaa waxaa hadallo kooban ka jeediyay mas'uuliyiintii bulshadii ka soo qayb gashay. gawaarida dabdabis inaan helo kuwa qashin qaaday qashinka waxa waaye amniga hataa qayb ugu yahay haddii qashin xagga dhigtid oo meelada lagu geliyo dhibkeeda leedahay laakiin qashinka guryaha xaafadihii laga soo qaaday haddii baabuur qaaday haddii la helo oo dowladda wasaaradda ay nagu deeqdo waxa waaye wax wanaag badan waaye garoonka waxaan rajaynayaa garoomo kale in la dhisi doono waxaan rajaynayaa nalalka cadceedda soolarada magaalada habeenkii waa ku caawinaa waa ku fiirsanaa wax badan ay noo tartay hay'adda TIS Plus. muhiimadda koowaad hooyada ah muhiimadda koowaad muhiimadda labaad iyo saddexaad hooyada ah waayo raggu wax ma qabsan karo muhiimaddu waa hooyada dhalaan guriga jooga oo baahan hooyada iskale kan jabda ku jiro hooyada iskale anaga waxaan codsaneynaa degmada Dinsoor wax badan aan loo qabtay shalay saan u maalmanihin oo badan aan ka gaarnay markaas bacda wali si ku baahanyaa si soo faa'iideysan mashaariicda noo meelahay si bandhigi oo kubada inta meelahay elborki isin ilaalisa ku baahanta saaso kala footballki meel banooyin lagu ciyaaro isin ilaalisa ku baahanta wala si la seedes iyo reebis oo robisetin marka wali bal si ku falay saaso kala jidka inta ilaalisatan dhammaanada Dinsoor may badaan intiisii aan bareejayta meelo kala wadamada kala waxyaabo kala dhammaanada ama hadii aad fiiro meelo kala yani meelo Mareykanka ku hadalay inaha uma gabarleer oo meelo ka jirta Congress-ka Mareykanka unil golaha deegaanka meelo inta tuuga inta kana beer inta kana bilo biqaadaas ama bulimiintiina meelo kala hoogsadaa isku reebo baa hoogsada digniinka dhigay si digniinka ka hayta meelo ay sharafnaa iyo si ku qayb qaata tusaalahaan inta naga boodaaday bilaameyeen hobler eedan kiyada boqolkiiba lama miseeyay ma sababay taas inuu nortoogaan madalka saxo arjaal qawaamuna min nisaa taas macnaashe meel ka sii kaliyaan si ka qaadayaan siyaasadda gal korno la tagtama korno wala barnaan la bardo korno wala qowna la qowna korno laakiin tan mudiintina reebta waliyaaka macnaha intuu naga dhigsiina sidoo ay soo bidaan suuqyada dhaxalka iskuul aan hayno. Gudoomiyaha degmada Dinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow iyo wasiirka Arrimaha Gudaha ee Maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Madoobe Nuunow ayaa gabagabada seminaarka hadal kooban ka jeediyay, waxaana ay sheegeen muhiimadda amniga iyo sidii loo hirgelin lahaa qorshayaasha lagu horumarinayo degmada Dinsoor. qorshagan ayaa uu jaabay lanki xaan niwada taaway yaado biyo gaar waay iyo dooshanka imaamka gaajada iyo haweenkan ana makasay iyo jil aan saaxiibay oo beentay hadana nurug beenta hadiyada walaagu uni aan imaamka ana marka hadal ka hormaro hadana maran dad saaxiibay mila markuu gooyay halko malan ko intimatorium ko halko reer Dinsoor oo ko bujar xaalad ala hamari ilaahay ma iskale dhawaan inuu qaado alla walaagay ku sheegay oo ahaan jeedada qaado wasaaradda kale u diiday inay ku jiro TIS Plus maamulka shaqadiisa jawab qaado boorka oo hadda soo waajiyay in magaalada meel masashe baahan insha Allah wada hadlaan waa leeyahay qorshaha tijar sidoo kale tababarkii markii tan lagu wajiyay tabtaa helita soo gudbiyay shay wala tuma qadiyaan miisaan isa sheegaysan bulshada walaal kooy iyo hibada Xuseen Ali Geesi RTN degmada Dinsoor.